tani waa sir culus oo ku saabsan dhagarta loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah qaabka loo sameeyo sixirka loona soo dejiyo jiniyada waana hubaa muuqaalkan haddaad daawatid inaad la yaabi doontid fadlan la wadaag bulshada si ay ugu foojignaato kooxahan dhagarta u maleegaya ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed leegtana ku qabo muuqaalka waana qaybtii koobaad muuqaalkan waa kuma Sheekh Rusheeye wiilkan reer Laascaanood ee hadda ku sugan Muqdisho waa taajir guryo badan ku leh magaalada Muqdisho kana taajiray sixirka iyo jinka dadka lagu soo dejiyo Rusheeye dabcan waad garanaysaan laakiin wajigan waa wajiga labaad ee u qarsoon Rusheeye asiga uu sheegtaa in kalaamka Ilaahay ee qolkii eebe ee Qur'aanka Kariimka in wax uu ku daaweeyo laakiin taas waa mid ka fog xaqiiqda markuu yimid magaalada Muqdisho wuxuu sitay caag ee ku jiraan biyo waxaana loo geeyay dad xanuunsan oo muddo sariir jiifay soo isla markaasi adeegsaday biyaha caagaasi ku jira oo la sheegay inay ahaayeen sixir waxaana sixirkan laga soo sameeyay dalal khatar ku ah sameynta sixirka taas waxay keentay in dhowr qofood biyahaasi ay ku fiicnaadaan isla markaana lacago badan uu ka qaado eheladooda waxaana durbaba isgaaray warka ayadoona dadka ay u malaynayeen in Rusheeye dadka uu ku daaweynayo kalaamka Ilaahay ee Qur'aanka Kariimka laakiin waxa uu watay waa sixir laga soo sameeyay dalka dibadiisa dawadeed waxa xaruntiisa dharkeelay ku soo qulqulay haween aad u fara badan kuwaas oo uu isticmaalayo faraantiyo uu wato lagu soo dejiyo jinka boqolkiiba 99 dadka lacagta uu ka qaado waa haween lagu soo dejiyo jinka waxaana jinka soo dejiya isla Rusheeye wuxuuna uu isticmaalayaa faraantiyo khatar ah uu wato Rusheeye wuxuu handadaad joogta uu ku hayaa wadaadada waaweyn ee Soomaaliyeed ee tuftooda ee tahay aqbal kuwaas oo qaar ka mid ah uu ku dilay gudaha magaalada Muqdisho qaar kalena uu ka xirsaday magaalada caasimadda u ah Soomaaliya ee Muqdisho asoo ka yimid Laascaanood wuxuuna u adeegsanayaa dhalinyaro ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo kolkii hore uu ka mid ahaa iyo waliba askar ka tirsan ciidamada dawladda si nabad ah ayuu ku degan yahay gudaha degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir waxaana taas u sahashay in kolkii hore uu ka mid ahaa qaybta amniyaadka ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab xogtaan helaya sidoo kale waxay muujinaysaa dad badan oo qaab qaldan uu ugu soo dejiyay jiniyada oo haween u badan in jiniyadaasi aakhirkii ay dileen ayadoona aan idin soo gudbin doonno wareysiyo ku saabsan dadkaasi jiniyada uu ku soo dejiyay oo aakhirkii jiniyada ay dileen una badan haween Soomaaliyeed ehelada waxay sheegayaan in dhimashada gabdhahoodu sabab uu ahaa jinka uu ku soo dejiyay Rusheeye waan hubaa wareysiyada qaar haddaad daawataan in dhammaantiin aad la ilmeen doontaan dhagarta uu adeegsanayo ninkan wadaadka sheegta ee loo yaqaan Rusheeye arrimaha la yaab kale waxaa ka mid ah lacagahan uu ku sameeyay jinka soo dejinta jinka iyo waliba sixirka in lacagahaasi uu ku dhistay guryo waaweyn oo ku yaal meelo kala duwan oo Muqdisho ah uu dhawaan guursaday afar xaas ah mar la weydiiyay sida fudud ee afarta xaas uu u guursaday Rusheeye wuxuu sheegayaa in ilaa 8 haweenka uu gaarsiin doono taas oo aan qabin shariicada islaamka ee aan u nasab sheegano dhammaanteenba goordhow la soco Rusheeye iyo dhagarta uu ku hayo bulshada iyo wareysiyo ka ilmaysiin doono hadduu Allah awoodda uu saamaxo